dagaalka u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo haatan maraya meel xasaasi ah iyadoo dowladda federaalkan ay doonayso inay dalka Soomaaliya guud ahaantiisa ka hirgeliso dowlad dhexe oo awood leh halka maamul goboleedyaduna weli ay doonayaan in lagu sii jiro qaabkii 4.5ka dowladda dhexe ayaa haatan u muuqata inay soo taagan yihiin maamul goboleedka ugu dambeeyay ee Jubbaland kaasi oo ay doonayso inay dhulka la gasho maamulka Axmed Madoobe ayaa haatan u muuqda mid difaac adag ku jira iyadoo ay dowladda federaalkan dhan walba ka weerarayso awoodda Axmed Madoobe ayaa haatan u muuqata mid sii liicaysa iyadoo marba marka ka dambaysana dowladda dhexe ay isticmaalayso qaadka iyo weliba noocyo kala duwan haddii aan taariikhda mar kale dib u eegno waxay dowladda federaalka ay awooddeedii markeedii ugu horeysay ku tijaabisay maamulkii koonfur galbeed ee uu xilligaasi u arriminayay nin siyaasi rugu caddaa'ahi oo aad uga dhex muuqday siyaasadda Soomaaliya oo ay adag tahay in la loodiyo waa Shariif Xasane dowladda ayaa iskugu geysay awooddeedii oo idin si ay uga saari lahayd halkaasi Shariif Xasan oo ayna ku guulaysatay